السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تشرفت له أدونكم ميل كستا كجوجتين كسو دوادا عنتا معين channel فضلا محان كعدسنايا channel كدا سو بوقته إنا سبسكرايب إسرتيد موقال كان دوك سو غاري محان كعدسنايا إنا لايك إسرتيد أصحاب تادي فاميلي هذا الشيء جريسيد آدي أيا أمات سنتاي أصحاب تيدا قالي ما تمحان سميسانينا قضو بريس مندي إيو هيلب عبيتان إيو بس إن شاء الله لسعود ونكسن سو دوادا. بسم الله marka hore xawaajiga mandhiga ayaan sameynayaa birta ayaan dabka soo saartay waxaan ku soo shubayaa 2 qaado xawaaji burbur kadib waxaan ku soo darayaa 1 qaado oo xawaaji dhudhub ah kadib markaan waxaan ku soo darayaa 1 qaado yar filfil kadib markaan waxaan ku soo darayaa qaadada yar afkeeda hore oo dhaga yar ah kadib markaan waxaan ku darayaa 1 xabo caleenta bay leaf 1 xabo qorfe ah iyo heel ilaa iyo 3 xabo kadib markaan intan ayaan dabka si fiican marka hore ugu dubayaa ilaa 5 daqiiqo ama ilaa ay ka soo carfaan oo midabkooda soo bedelmaan. asxaabay xawaajiyaha markana diyaar waaye markana dabka ayaan ka daminayaa maxaan sugayaa marka hore intay ka soo qaboobaan markay qaboobaan kadib waan shiidayaa. asxaabay xawaajiga markana diyaar waaye markana maxaan ku darayaa 2 qaado yar paprika kadib maxaan ku darayaa qaadada yar afkeeda hore oo sanjabiil shiidan ah kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda oo huruud ah kadib xawaajiyahan ayaan si fiican isku darayaa. xawaajiga mandi markana diyaar waaye markana hilibka ayaan karsanaynaa. digsigan pressure cooker maxaan ku haystaa 1 kiilo hilib ari ugu horreyn maxaan ku darayaa 1 qaado yar oo toon ah kadib maxaan ku darayaa 1 qaado yar sanjabiil kadib maxaan ku darayaa 1 qaado yar xawaaji mandi kadib maxaan ku darayaa 1 qaado yar oo cusbo ah kadib biyo ayaan ku shubayaa kadib waan daboolayaa dabka ayaan u shidayaa maxaan sugayaa hilib ilaa uu ka soo bislaado ama ilaa iyo 40 daqiiqo. asxaabteyda qaaliga hilibka markana wuu soo bislaaday maraq ayaan ka miirayaa dhinac ayaan iskaga dhigayaa markana bariiska ayaan karsanaynaa digsi ayaan dabka soo saartay maxaan ku soo shubayaa xoogo saliid markay soo kululaato kadib maxaan ku soo darayaa 3 xabo basal aan si yar u soo jarjaray marka hore maxaan sugayaa basasha ilaa ay ka soo bislaato. asxaabay basasha markana diyaar waaye markana maxaan ku soo darayaa 1 qaado yar oo toon ah kadib maxaan ku darayaa 2 qaado xawaajiga mandi kadib markan maxaan ku darayaa 1 xabo liin dhanaan oo engegan kadib intan ayaan marka hore si fiican isku sii darayaa maxaan shiilayaa ilaa iyo 1 daqiiqo. asxaabay markana maxaan ku soo darayaa 5 bakeeri maraqa hilibka soo hare iyo biyo aan isku soo daray kadib markan cusbo ayaan ku darayaa kadib waan daboolayaa kadib maxaan sugayaa maraq ilaa uu ka soo karkaro. asxaabay maraqa markana wuu soo karkaray kadib maxaan ku soo darayaa 3 bakeeri bariis basmati bariiska marka hore waan dhaqay kadib biyo ayaan la dhigay ilaa 1 saac kadib markan biyaha ayaan ka soo miiray markana cusbada ka dhadhami wax yar cusbo ayaan ku darayaa
kadib waan daboolayaa, maxaan sugayaa maraqa ilaa uu kasoo gursado. asxaabay, bariiska intuu karaayo hilibka ayaan rabaa inaan hagaajiyo. baaquli ayaan soo qaatay, maxaan kusoo darayaa hal qaado yar oo toon ah, kadib maxaan ku darayaa hal qaado yar oo sanjabiil ah, kadib markaan maxaan ku darayaa 2 qaado yar xawaaji mandi, kadib markaan maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda paprika, kadib maxaan ku darayaa qaadada yar nuskeeda oo cusbo ah, kadib markaan nus liin dhanaan ayaan kusoo miirayaa, kadib maxaan ku darayaa wax yar oo saliid ah. kadib markaan maxaan ku darayaa 2 qaado plain yogurt, kadib intan ayaan marka hore si fiican isku darayaa. asxaabay, markana intan diyaar waaye, maxaan marinayaa hilibka maxaan saaraa weelka foornada, kadib foornada kulul ayaan gelinayaa. markaan xawaajiga si fiican u mariyo, dabka maxaan u geeyay 180, muxuu ku jirayaa ilaa 20 daqiiqo. asxaabteyda qaaliga ah, markana bariiska ayaan usoo laabtay, maraqa dhan uu ka gursaday. kadib markaan mara ayaan saarayaa, daboolka ayaan saarayaa, kadib dab gaaban ayaan ku huurinayaa ilaa 15 daqiiqo. shan iyo 10 daqiiqo kadib bariiskeeni markana diyaar waaye. sidan qurux badan ayuu kusoo baxay. waa bariis aad u fudud, aad u macaan badan, bariis furfur ah. maxaan rajeynayaa inaad ka heli doontiin. asxaabay, hilibka markaan foornada kasoo saaray sidan qurux badan ayuu kusoo baxay. markana step u dambeeyay ayaan gudagalaynaa. digsiga bariiska ayaan usoo laabtay, hilibka ayaan dhinac kasoo saarayaa, dhinac kale bacda aluminiumka ayaan soo saarayaa, kadib dhuxul aan soo shiday ayaan saarayaa, kadib wax yar saliid ayaan ku shubayaa, kadib waan daboolayaa. maxaan rabaa inaan isku qiiqiyo bariiskii hilibka ilaa 5 daqiiqo. ugu dambeyntii bariiskii hilibka sidan qurux badan ayay kusoo baxeen. waa bariis mandi iyo hilib aad u macaan badan, qof walba sameyni karo. waa bariis aad u caraf badan, ku anfici doono. maxaan rajeynaa inaad ka hesheen. asxaabay, markana basbaaska ayaan sameysanaynaa insha allah. la socod wanaagsan. makiinada ayaan soo qaatay, maxaan ku ridayaa 2 xabo yaanyo aan soo jarjaray, kadib maxaan kusoo darayaa basbaas ilaa 3 xaba iyo 1 xabo toon ah, kadib maxaan kusoo darayaa xoogaho kabsar caleen ah, kadib maxaan ku darayaa liin dhanaan aan soo miiray, kadib maxaan ku darayaa qaadada yar afkeeda hore oo xawaaji dhudhuub ah, kadib maxaan ku darayaa wax yar cusbo ah iyo wax yar biyo ah, kadib intan ayaan isku soo shiidayaa. asxaabay, basbaaska markaan soo shiiday sidan ayuu kusoo baxay. markana cabitaanka ayaan sameysanaynaa insha allah. la socod wanaagsan.
asxaabay markana cabitaanka ayaan samaysaneynaa oo watermelon mojito. meeshan maxaan kusoo diyaarsaday galaasyaha isticmaal lahaa. ugu horeyn maxaan ku darayaa qara aan soo jarjare. kadib markan maxaan kusoo darayaa liin dhanaan aan soo jarjare. kadib maxaan kusoo darayaa caleenta mint leaves. kadib maxaan usoo qaadanayaa kal. intan ayaa marka hore si fiican u jajabinayaa. asxaabay markana maxaan kusoo darayaa baraf. kadib maxaan kusoo darayaa qara aan gaar usoo shiide. kadib maxaan kusoo darayaa soodhada Sprite. ugu dambeyntii markana cabitaankeenii sidan qurux badan ayuu kusoo baxay. maxaan rajeynaa inaad ka hesheen. waa qado dhammaystiran oo anfici doono. familigaada u sameyn kartaa, naftaada ayaa u sameyn kartaa. maxaan rajeynaa dhammaantood inaad ka heli doontiin. inta haysanin Allah siiyo, inta haysatan Allah u barakeeyo. ilaa iyo intan hadday la soo gaartay waan kaaga mahadcelinayaa. muuqaalkan hadduu kusoo gaaray maxaan kaa codsanayaa inaad like isartid, asxaabtaada familigaada la share garaysid. channelkan haddaa soo booqatay maxaan kaa codsanayaa inaad subscribe isartid. muuqaalkan muuqaal lamida intaan kulmi doono. sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.